doorashadii golayaasha deegaanka Somaliland ee u horeysay ayaa qabsoontay sanadkii 2002 kadib markii la hirgeliyay dastuur qaran oo lagu meelmariyay afti qaran taasi oo horseeday inuu dalku yeesho xisbiye qaran. Arrintani ayaa u ahayd muhiimad gaar ah hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland taasi oo Somaliland ku muujisay inay awood u leedahay inay samaysato hannaan iyo haykal maamul oo ay kaga baxaysay awood qaybsigii ku dhisnaa nidaamka qabiilka kaasi oo salka ku hayay hababkii wadaxaajoodka ee ay ku dhisan tahay Somaliland laga soo bilaabo sanadkii 1991 kadib doorashadii golaha deegaanka oo si habsami leh ugu qabsoontay Somaliland waxa iyaguna qabsoomay doorashooyinkii u horeeyay ee dadweynuhu cod ku doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sanadkii 2003 iyo golaha wakiilada ee sanadkii 2005. inkastoo ay labada doorasho u dhaxaysay dib u dhacyo ku yimid waqtiga ay qabsoontay doorashadu, haddana sanadkii 2010 bishii Juun ayaa mar labaad waxa ka qabsoontay doorashadii madaxtooyada Somaliland. haddaba doorashadii labaad ee golayaasha deegaanka Somaliland ayaa iyadu noqotay mid qabsoonta 10 sano kadib oo ku beegnayd sanadkii 2012 waxaa soo baxay oo la doortay jiil cusub oo xildhibaan ah taasi oo saamaxday in ay dhabada u sii furto hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland. tiraba 5 doorasho ayaa ka qabsoomay Somaliland muddo 10 sano gudahooda kuwaas oo dhammaantood ku qabsoomay si nabada. Tani waxa ay tusaale cad u tahay horumarka ay ku tallaabsadeen bulshada reer Somaliland dhinaca dimuqraadiyadda isla markaana ay ku qeexeen kuna asteeyeen xuquuqdooda iyo karaamadooda. mabaadi'da dimuqraadiga ah ayaa Somaliland ku gaadhay muddo gaaban oo aan laga filayn. inkastoo ay Somaliland guul ka gaadhay xoojinta hannaanka dimuqraadiga ah ee ay qaadatay taasi oo lagu ogaaday dhacdooyinkii doorashooyinkii ka qabsoomay, haddana doorashadii labaad ee golayaasha deegaanka waxaa soo ifbaxay caqabado xakameynaya hannaanka dimuqraadiga ah isla mar ahaantaana u baahan in wax laga qabto si loo joogteeyo horumarka dimuqraadiyadda Somaliland. filimkani waxa uu ku xog bixin doonaa guulaha la gaadhay iyo caqabadaha ku gadaaman ee uu la kulmayo hannaanka dimuqraadiga ah ee Somaliland ka tisqaaday. wejiga koowaad ee barnaamijka tiirarka nabadda ayaa ujeedadiisu ahayd inuu soo bandhigo hannaanka dhismaha nabadda kaasi oo la jaan qaadaya hannaanka dhismaha dowladnimo ee Somaliland isaga oo u wareejinaya awoodda dhisidda nabadda qaybaha kala duwan ee muwaadiniinta Somaliland oo u abuuraya madal dhexdhexaad oo ay daneeyayaashu dhammaan ka qayb qaadan karaan isla markaana ku wada hadli karaan iyo waliba in xubnaha dawladda ka midka ahi ka qayb qaataan si loogu soo bandhigo arrimaha muhiimka ah ee ay la kulmaan dadweynuhu. bilowgii wejiga koowaad ee barnaamijka tiirarka nabadda waxaa dhammaan gobolada dalka laga qaaday sahan cilmi baadhis kaas oo kulamo wada tashi iyo madal doodeedyo isugu jiray lagulana kulmeeyay dadweynaha maxalliga ah ee heer tuulo, degmo iyo gobolba. waxa kale oo ujeedadiisu ahayd in loo kuurgalo fikirka iyo codka dhalinyarada, haweenka iyo dadka la haybsooco la xiriira caqabadaha hortaagan hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland. sanadkii 2010 akaademiga nabadda iyo horumarku waxa uu qabtay kulan guud ee daneeyayaasha barnaamijka kaas oo ay isugu yimaadeen boqolaal ergey oo ka kala socday degmooyinka iyo gobolada Somaliland si ay u xaqiijiyaan una ansixiyaan waxyaabaha ka soo baxay sahanka cilmi baadhista sidoo kalena u gorfeeyaan arrimaha saameynta ku leh hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland. daneeyayaasha ayaa u codeeyay isla mar ahaantaana mudnaanta siiyay in wax laga qabto shuruucda doorashooyinka Somaliland kaas oo noqday arrinta ugu muhiimsan ee caqabada ku ah hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland. daneeyayaashu waxa kale oo ay isku raaceen in la dhiso guddi hogaamineed ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si ay uga shaqeeyaan tiirka dimuqraadiyadda akaademiga in si qoto dheer looga shaqeeyo hannaanka dib u habeynta shuruucda doorashooyinka. sidaas daraadeed waxa kale oo xoogga la saaray habka samaysanka xisbiyada siyaasadda iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha.
guddi hogaamineedka ayaa ku dhawaaqay waxqabadyo wax ku ool ah oo dib loogu habaynayo shuruucda doorashooyinka Somaliland iyaga oo qabanaya kulamo wada tashiyo iyo dooda isugu jira kuwaasi oo lagu daafurayay goldololooyinka shuruucda ururada iyo xisbiyada qaranka, doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka. arrimaha soo baxay ayaa dhammaantood waxaa lala wadaagay go'aan qaatayaasha talada dalka oo ay ka mid yihiin xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. guddidu waxay bilowday in ay ka caawiso go'aan qaatayaasha in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka ururada iyo xisbiyada si loo unko sharci dihin oo waafi ah oo ay yeeshaan xisbiyada qaranku. waxa kale oo wax ka bedel lagu sameeyay xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka. waxaa la qaatay habka liistada furan ee doorashada. sidaas daraadeed waxaa soo ifaxay caqabado farsamo kuwaasi oo akaademiga nabadda iyo horumarku ka caawisay komishanka doorashooyinka qaranka fardaamintooda. waxa uu u fududeeyay in uu u qabto kulamo isugu jira madal doodeedyo, wada tashiyo iyo weliba in uu u qabto doorasho tijaabo ah oo lagu falanqeeyo caqabadaha. sidoo kale waxaa akaademiga nabadda iyo horumarku iyo guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranku ay buddhigeen qoraal xeer anshax kaasi oo meesha ka saaray madmadowgii ku jiray fasirayana habka doorashada saddexda xisbi qaran ee xeerka ururada iyo xisbiyada qaranka qodobkiisa 6 waxaana hirgelintiisa saxeexay si wada jira ururada iyo xisbiyada tartamayay. sidoo kale waxaa si wada jir ah akaademiga nabadda, horumarka iyo komishanka doorashooyinka qaranku u fuliyeen xeer anshax oo ay wada saxeexeen saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa dawliga ah oo ay matalaysay wasaaradda warfaafintu. xeerkaasi oo ahaa mid hubinaya in saxaafaddu si habsami ah u gudbiyaan arrimaha doorashada oo ay ku dheehan tahay anshaxa mihnada saxaafaddu. markii uu dhammaaday wejiga koowaad ee barnaamijka tiirarka nabaddu waxaa bilaabmay wejiga labaad oo ah in la sii wado hanaanka dhismaha nabadda iyo dowladnimada kaasi oo daba socday maxsuulkii ka soo baxay barnaamijka wejigiisa koowaad. muhiimadiisuna tahay in uu u wareejiyo awoodda dhismaha nabadda iyo dowladnimada bulshada, madaxda rayidka iyo gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada. bilowga wejiga labaad ee mashruuca ayaa waxaa buddhig u ahaa sahan cilmi baadhiseed oo lagu xog waraystay matalayaasha bulshada iyo qaybaheeda kala duwan kaasi oo ka qabsoomay dalka oo dhan, isla mar ahaantaana lagu ogaanayay arrimaha ugu mudan ee khuseeya hanaanka dimuqraadiyadda Somaliland. waxaa la sameeyay daraasad iyo sahan lagu lafagurayay fikradaha iyo aaraa'da daneeyayaasha iyo matalayaasha bulshada ee kala gedisan oo ku saabsan caqabadaha horyaala tiirka dimuqraadiyadda ee barnaamijka. waxa kale oo la darsayay ra'yiga haweenka, dhalinyarada, dadka la haybsooco iyo kuwa la faquuqo si loo helo codka qaybaha kala duwan ee bulshada ugana soo wada baxaan cilmi baadhista. sahanka ayaa akaademigu qabtay sanadkii 2013 bishii Oktoobar. waxaa sahanku wada gaadhay dhammaanba gobolada 6 ah ee Somaliland ee Saaxil, Togdheer, Sanaag, Sool, Maroodi Jeex iyo Awdal. intii lagu guda jiray sahanka waxaa la qabtay kulamo xog waraysi oo kooxa ah iyo mid kale ah oo lagula kulmayay matalayaasha heer gobol iyo degmo si ay u soo bandhigaan ra'yigooda ku wajahan caqabadaha horyaala hanaanka dimuqraadiyadda Somaliland. hase yeeshee sahanku waxa uu mudnaan gaar ah siinayay in wax laga weydiiyo haweenka, dhalinyarada iyo dadka la haybsooco arrimaha caqabadaha ku ah dimuqraadiyadda Somaliland.
dimuqraadiyadda horta marka la doonayo in la tiigsado oo la gaaro waxa laga soo bilaabaa sees hoose laga soo bilaabaa sees hoose oo marka xisbiyada la abuurayay horta inay ku soo abuurataa bay ahayd dimuqraadiyadda ma noqonin dadkeena lama fahamsiin waxa weeye xisbiyada haddaan nahay ama xisbiguba iminka muuqaalka uu leeyahay waa salaana ma jaranjar qofku dawladnimadiiyo inuu xukumo ku fuulo ma aha dhaqan dee iminka aynu gacanta ku hayno oo dimuqraasi hoynu ku wada tashano waxa loogu talagalay xisbiga marka dimuqraadiyad in ka boorama u dhashay iyo ka caynabo ka dhashay iyo ka cergaabo iyo ka laascaanood iyo ka u dhashay badan u dhashay xisbigii inay ka midaysnaayeen xisbi dadkii ka wada muuqda uu yahay oo lagu doorto dee qadiyad lagu raaco wax qabadkiisa wuxuu soo bandhigay lagu raaco qabyaaladdu ma hortaagna xisbiyadan laakiin xisbiyada laftoodiiba waxay abuureenba qabyaaladda iyagaaba qabyaaladii u aabba'a xisbiyadan rag baa samaystay ucud waa la yaqaanaa cidda leh runta marka laga hadlo kulmiyana waa la garanayaa ciddii samaysantii siduu ku abuurmay ma jiro xisbi leh vision dheer dad fara badan oo kala afkaara oo kala interest ah oo ujeeddo dheer oo fog lihina umay abuurmin ninba xisbi soo abaabulanaya guddoomiyuu yahay xisbiga markuu nin guddoomiye u yahay kaa guddoomiyaha u ah waa reer hebel weeye dadkii kale ee xisbiga ku soo biirinayana wuxuu doonaya inuu ku aruursado reernimo hore gaalada xisbigii reer hebele u codeeya soo kaca qaabkaasaa lagu wadaya saddexdaa xisbi imika waxay marayaan inay dimuqraadiyaddii ay doonayaan inay dadka baraan waxay u bedesheen inay qabyaalad ku hadlaan oo hargeysa hadday doonaan kala sheegtaan oo hadday doonaan oo marba dhinac isu qaadaan oo personal attack isku sameeyaan waxa weeye horta xisbiyadii iyo qabiil raadsaday ninba ninkuu ka reer badnaa bay u tageen kharashkay qaar ka bixiyeen oo yidhaan tartanka ku soo gal halkaas horta sartu ka quruntay oo dhibaatadu ka timiday nimankan muxuu ahaa xisbiyada iyaga u aabba'a ma garanaysaa ragga wata ee madaxda ka ayaa u aabba'a burburka iyo baaba'a xaqiiqada marka la sheego ilamaa hargeysa ilamaa boorama waxbaa istaba joogay waa la wada ogyahay xildhibaan kastaa uu ogyahay ilaa marka tiradaada la tirinayo kuwa joogaa ee meesha joogay waxay ka shaqeeyaan baa la ogyahay markaa bahasha inaan sii wadwadno maaha meel xun bay dee usii dhaadhacasaa laakiin anugu waxaan odhan lahaa ducaysano horta mashkaladaha dhibka keenaya ee aan maxay ahaydey dadka maxay ahaydey ku keenaya waxa kamid ah dee dalka horta dalku ma laha diiwaangelin sax ah oo la taaban karo oo intaasoo shakhsi baa halkaa degmo hebel ku nool looma odhan karayaa maanta ma yaalaan sababtoo sidii berigii hore loogu qasaaray tii hore qof baa wuxuu qaadanayay 20 kaadh 17 kaadh 10 kaadh waa shakhsi qura dadka intii badnayd ee kaadhka quraysatay mabay codaynba qofkaasi uu xamuurayay meel ku xamuurayay mooyaane diiwaangelintii hore xumaatina waxay ku xumaatay caqli xumo iyo cilmi la'aan iyo dad aan muwaadiniin ahayn iyo qalab aynaan fahmayn oo aan dadka lagu tiririn garayn diiwaangelinta maanta waxaa la isla qaaday inay diiwaangelintu tahay shayga keliya ee golaha doorashadii xalaal ka dhigi karta marka diiwaangelintaas in ma garanaysaa hadda xeerkeedii la sameeyo fawd xeer hore ayaa bil hore la sameeyey runtii qabyo fara badan buu lahaa in hadda xeerkii diiwaangelinta codbixiyayaasha in hadda la sameeyo komishanka doorashooyinkuna ay dhammaystiraan waqtigaa loo qoondeeyey inay dhammaystiraan haddana sharcigeedii dib loo habeeyo ta kale waxa weeyaan doorashada golaha wakiilada iyadana runtii xeerkaasi dee xeer waqti loogu talagalay buu ahaa iyadana in hadda xeerkii doorashada golaha wakiilada in hadda la diyaariyo talabaada kale ee dhigi karta iyaduna waxa weeyaan xuduudaha in gobolada iyo degmooyinka dalka iyagana la sugo oo xeer lagu sugo oo xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka oo hadda 6 gobol una aqoonsan in isagana xeerkaas oo kale dib u habeyn lagu sameeyo
oo maxaa ahayd xuduudaha gobolada marka haddii la sameyn waayo waxay noqonaysaa inay caqabad bay ku noqonaysaa doorashadu inay waqtigeeda dhacdo waxa kale oo aan runtii ku dari lahaa waxa weeyaan arrinta kale ah iyaduna golaha guurtida laftigoodana in xeerka laga soo saaro inay noqonayso selection iyo inay noqonayso election diiwaangelintu waa u xunaysan waa record haddii aynaan record lahayn waxba noqon mayno ugu muhiimsan waxa weeye qabyaaladda iminka golayaashii deegaanka la doortay dhowaan doorashada la doortay iyadoo ay asxaab yihiin ayaa haddana waxaa qofku doorashadiisu ku salaysnayd qabyaalad waxaa caqabad noqon kara diiwaangelintaas oo la qabanayo waqtiyada lagu qabo waa caqabad waxay noqon dib loo dhigi kartaa waayo lama gelayo doorasho aan diiwaangelin lahayn waa sharci sidii tii hore maaha baarlamaanka sharci baa u yaala u dhigay baarlamaanku lama geli karo waxaa dib u dhigi kara iyadoo aan dadkii diiwaangelinta iyadaan la gelin waxaa dib u dhigi kara iyadoo aan diyaargarowgii kale ee haddii bidmaayo haddii lacag tahay iyo haddii qash diiwaangelintu hawl badan bay u baahan tahay baarlamaankuna hawl badan buu baahan yahay labadaba iyadoo laga seexdo oo aan la qaban waayo bahasha aynugu xun bahasha qabyaaladda la yidhaaho mid ka xumine tan may jirin doorashadan tan imika ugu dambaysay mid ka xumi ma jirin cidiyaha yaa lagu dagaalamay cidiyaa yaa lagu dagaalamay kii wax kaa cunay baa ka kale ugu ridayay dadku ma fahansanadii kii aad wax u dhiibtay yaa ka kale ugu tuurayay oo maxaa kaa galay ku odhanaya markaa tan mid ka xumimo ma jirin oo ina soo martayba dimuqraadiyaddu ma diinbaa ma diin la'aanbaa ma reerbaa waxa ay dimuqraadiyaddu ku salaysan tahayba haddaanu dadku garanaynin ama aanu fahmaynin inuu erayga iska qaato maaha dimuqraadiyadii ma sida aad doonto hadalba ma naqaano dimuqraadiyad waxa ay ku salaysan tahay waxa hortaaganta koowaad horta markii hore waxaan jirin dadkii horta aan fahansanayn bay jirtaa talabaadna waxa weeye dadkii aan ku dooranayn aqoon laakiin ku dooranaya qabyaalad daniyadii ayaa aad iyo aad u yaraatay nationalismkii way yaraatay wax kala ka weynaaday deetana bal dadka horta in laga dhiso civic educationka aad sheegaysoo kale dee imika wax badan dadkiina uu ka maqan yahay syllabuskii buu ka maqan yahay dadkii waaweynaa buu ka maqan yahay qof maanta haddaad ku tiraahdo dadkiina haddaad weydiiso maanta xeer ama qodob ka mida constitutionkeena waxaa laga yaabaa 80% dadku inaanay garaninba wacyigelin oo dadka la wacyigeliyo la gaadhsiiyo waxaan dimuqraadiyaddu ay xabaarsan tahay iyo habka wax loo doortay macnaheeda oo aan dadkii fahansanin oo la gaadhsiiyo dadka la wacyigeliyo marka hore intaan hadda doorashada la gelin oo waxaan loo bisleeyo dimuqraadiyaddan waxay ka hadlaysay sida ay tahay nidaamkeeda iyo sida wax loo doortay hawsheeda dhaqaaluhuna wuu kooskareynayaa dadka annaga gaar ahaan dumarka dhaqaalo wuu xanimayaa waayo sababtoo ninku wuxuu hayaa guri uu hanti u leeyahay amba uu dhexleeyahay gabadhu dee ma iibin karta aqalka heerkooda sababtoo dee nin baa jooga nin walaalkeed baa taagan raggoodii baa jooga shirka ma dhigaysa dee aqalka iyadu laakiin isagoo awood buu leeyahay aqalkaa shirka ku dhiga haddii dhaqaala yimaado laakiin iyadu ma haysa waxay shirka dhigto tiraahdo kan baan dhigayaa shirka deedna isaa ku iibiso dee tiraahdo kaasaa dhaqaale ku buuxinaya dee caalamka wadamaha weyn xukumaan baa jira oo maxaan ku dhahdaa ka taliyaan oo la ogyahay madaxweyneyaal ka yihiin tii dhacday iminka doorashadii ugu dambeysay oo kale dee dumarkiisa soo sharaxay wada ogeydantii qabsatay iyo waxyaabihii caqabada ay la kulmeen anoo kale iminka odan iska soo qaado dee reer keliya aan ahaayo maxaan ku dhahdaa ubadkaygii aniguba aan wada ahayn haddaanay taasi jirinna ma soo baxeen de kuwii kaleba halkay mareen baan mari lahaa ta dumarka oo aad tiri idinkaa dadka ugu tira badan maxaad u soo bixi weyde waxaa weeye dumarka iyagu waanaan isku duubnayn isna doonayn naag walba in adeerkeeda ama inankeedii ama walaalkeed ayaa sharaxan markaasuu odhanaya aniga ii ololay tii gabadhana halkaasi kaga tegaysaa markaa isku duubni aanay dumarku isku duubnayn oo is ogeyn
ayaa tafaraaraqa ku riday oo raggii kala kaxaysanayo waxaan ka hadlayaa horta mujtamacan beesha gabooye gobolada Soomaaliland oo dhan way ku kala firaqsan yihiin xukuumadda Soomaaliland waxay tiri waxaan u qoondeynay kooto ay leeyihiin beelaha gabooye waxa jira beelo badan oo imika Soomaaliland degan oo aan doorasho ku soo bixin kala mid ah golayaasha sharci dejinta Soomaaliland sidaa daraadeed buu hodno kala ka mid ah uu ku jira golaha deegaanka uu soo baxay kumana dhicin doorasho kama dhicin tii uu madaxweynuhu soo gudbiyey ee uu yiri loo gudbiyo golaha wakiilada dadkaan alla siiyo gobol walba laga siiyo koota laga siiyana waxay soo taagay golaha baarlamaanka Soomaaliland beelaha gabooye dawladdu waxa kuma laha waxa meeshii taalaan iyagii iskuma kalsoona midba mid buu codeeyaa dadka kale isaga codeeyaa ma garaysaa haddii iyagu intay mid kalsooni isaga soo sharaxi lahaayeen gobolada waaweyn ay ku badan yihiin ay tay toos soo wada raacaan heedhe ay koodii u codeyn lahaayeen mid baa sheegtay gobolka Burco kale shan bay ka soo saari lahaayeen ha meeshii taalaa kalsooni ba iskuma qabaanba mid kastaba shilinka loo tuuro eriyaa dawladdiina dadkiina odhanaya war idinku isku kalsoonaadee mid kastaba uu soo kaxaysanaya afarto arkade yaa cod buu baahan yahay Soomaa way ka maqan tahay daba iyagina isku tashadaanoo intay shiraan oo shir guud qabsadaan oo yiraahdaan war maxay inoo dana duwaartay Soomaaliland bay inoo damo diilno hadana dawladdu mid kuma lihin waxba kama lihinba wasiirada tahay golaha guurtada tahay golaha wakiilada haday tahay xildhibaanada degmooyinka gobolada mid kuma lihin mid maxay ku dhacday dad umada qolo inaga yaryar oo waxba ahayn baadantaas soo waxa la magaraysan oo dawladda wax ka ah Soomaa inaga iyaga weeye waxaan anigu waxaan u arkaa in iyaga ciladu tahay reer ahaan waxaan ku qabnaa lugooyo kaliya afkana waan loo macaaniyaa waxa leedihiin maxaa doorashooyinka sababay oo ay ugu soo bixi weydeen hadda tiin beelaha gabooye war mar hore aan qabsateen waqti hore ayaa nala qabsaday nin maskaxda laga haystaa muxuu qabsan karaa wala qaybsaday waqti hore la qaybsaday way reer ahaan waxaan ku qabnaa lugooyo kaliya afkana waan loo macaaniyaa waxa leedihiin maxaa doorashooyinka sababay oo ay ugu soo bixi weydeen hadda tiin beelaha gabooye war mar hore aan qabsateen waqti hore ayaa nala qabsaday nin maskaxda laga haystaa muxuu qabsan karaa wala qaybsaday waqti hore la qaybsaday way runtii dhalinyartu waxay leeyihiin aqoon ay adduunyada ku baari lahaayeen dimuqraadiyad kastay gaadheen iyo procedure-kii ay ku gaadheen laakiin wixii oo dhan waxa ka masaxaysa oo cawaaqib ku leh qabaa'il anu qodobka kaliya cuskanaya waa qabiilada caqabada labaad waxay noqotay odayaashii warkan yar muxuu keenayaa war ducay habaar kala qaado un miidhan ba aakhirkii ugu yaraan waxa soo sharxay dhalinyaro ciidan ka badan oo fara badan aakhirkii waxa ka soo haray laakiin wax yar oo aan fara ku tirsan waad ogtay imkana kuwii soo harayna markii dambe deyn kuwa diiday ducada habaarka qaatay bay ahaayeen odaygu wuxuu oranayaa arama duco qaado ama habaar qaado meeshan loogama baahnayn yaro firgleeyo maada gaadhay